waxaan ka xumahay in dhallinyaradeenni maanta rag iyo haweenba ay badaha ku idlaanayaan oo ay runtii dariiqo xun oo inaan hore u arki jirin ay ku dhammaanayaan. waxaa looga baahan yahay maamulka maanta ka jira ee kulmiye inay jiheeyaan oo ay mustaqbalkooda ilaaliyaan dhallinyarada meel walba ku silcaysa, haweenkeenna meel walba ku silcaya, dadkeenna dhaqanxumidu ay hayso looma baahna cabudhis iyo iscabudhin iyo xadhig iyo xidhxidhis looma baahna. waxaa loo baahan yahay waxqabad oo ay kow ka yihiin dhallinyaradu. waxaan ka xumahay runtii oo wax aad iyo aad looga xumaado ah iyadoo waxaasoo dhibi ay jiraan in baaqigii hadhayna la yidhaahdo waxna ha la xidhxidho waxna ha la cabudhiyo. runtii wax munaasiba oo la geeyo maaha. waxaa kaloonu ugu baaqaynaa kulmiye waa layda arkaa, waxqabadkiinniina waa la arkaa. waxaa sheegataan wixii udub, waxaa sheegataan waxay dadku qabsadaan, waxaa sheegataan waxaydaan qabanba. waxaan odhan lahaa dadku waxbay arkayaan, indhaha caafimaadka qaba waxbay arkayaan. waxaan had iyo jeeraale aad ula yaabaa markuu hadlayo wasiirka maaliyaddu waxa uu yidhaahdaa mar walba 47 milyuun baanu ugu imi bajetka dawladda, 252 waan marinayaa. xaguu geliyaa yuu siiyaa talow? waxa aan runtii aad iyo aad ula yaabaa marka uu caynkaa yidhaahdo. maalin dhoweydoo uu mandheere ka hadlaayey, abdaal ka hadlaayey, ayaa waxa uu yidhaahdaa wasiirka maaliyaddu waxaannu qabannay waa caynkaa. deegaan baan anigu ka soo jeedaa mar buu soo hadal qaadoo wuxuu yidhi meel heblaayana waa caynkaasuu yidhi, halkanna biyaha labada gacmood lagu maydhanayaa, halkanna waxaasaa la sameeyey, maxkamaddii baannu furnay, kan kaleaannu samaynay, oo kan kale miyaanu isagu wasiir u ahayn talow? maalin ma arkay. abdaal baa waxaan doonayaa bal inaan soo eego bal waxaanu ku faanayay inay jiraan iyo in kale. maalin dhow baan doonaya inaan soo eego, markaasaan ka warbixin doonaa. dadku waxay u baahan yihiin isbeddel. annagu madax dhaqameed baannu nahay, 3 xisbiba waannu u dhaxaynaa, 3 xisbiba reerii baa ku jira, 3daba waannu soo dhowaynaynaa. waxaannu ku kala dooranaynaa laakiin barnaamijkooda hadduu yahay, hadduu u cud noqdo ka ugu wanaagsan waa raacannaa, hadduu waddani noqdo waa raacannaa. kulmiye laakiin dee weli horena waxbuu u sheegay, maantana waxbuu sheegayaa. dee indhahanna xanuunaya haddaannu xaggaa eegno.